xafladii waqooyi bari waa ay soo ilaatay madaxweynihii ra'iisul wasaarihii dawladii oo dhan ay isugu tagtay halkaas runtii waxay ahayd xaflad aad iyo aad loo soo maamusay laakiin maxaa xigi doona waa maxay ujeedada xafladda loo qabtay maxaa ku soo beega waqtigan waa su'aalaha u baahan in la isweydiiyo xafladda waxay ahayd xaflad waqtigeedii waxa waa dhacday runtii xilli la kala jiray Soomaaliya oo runtii waxa waa dawladda shisheeye Israa'iil ugu horeysay ay aqoonsatay Soomaaliya ay kala goyso marka waa xaflad runtii waxa waa waqtigeedii timid laakiin hab dhaqankii iyo qaabkii ay dawladda federaalka ula dhaqmi jirtay maamulka Cabdiraxmaan Cirro iyo maamulka gooni-goosadka ah maxay ka bedeli doontaa waa su'aasha maanta la isweydiinayo xafladii waa ay soo dhamaatay waxaa iman doona caqabado fara badan oo iyo culeysyo fara badan ay soo wajihi doonaan maamulka gooni-goosadka ah ee runtii waxa waa Somaliland waa maxay marka caqabadahaas waxaa ugu horeeya cunaqabateyn lagu soo roga dhankii xoolaha berberi ka dhoofi jiray single entry visa oo runtii waxa waa diyaaradii waxa waa international inay waxa waa ka soo degto magaalada Muqdisho oo runtii hab local ah ay ku tagto magaalada Hargeysa ama gobolada waqooyi marka caqabadahaas soo socdaan dhankii maraakiibta markab aanan waxa waa runtii waxa waa amar buuxa aan ka haysan inuusan marnaba cagahooda soo dhigan karin berberi wax lamid ah oo runtii waxa waa Imaaraadka oo DP World isii adkeynaysa in ay runtii waxa waa xanibaad aad u ballaaran maraakiibtoodii ka soo baxay Jabal Ali in aan biyaha Soomaaliya marnaba loo ogolaan karin waxa jira heshiisyo caalami ah oo maritime organizations waxa waa UN maritime organizations sida waxa waa IATA iyo ICAO loogu fasaxo diyaaradaha maraakiibtana loogu fasaxo markab aanan ogolaanshahiisa berberi kaba soo degi karo caqabadahaas waa ay soo socdaan marka waxa waa xadka furan waa wajaale maxay tahay dawladda Soomaaliya maxay ka bedeli doontaa waxay wax ka bedeli doontaa habkii xawaaladihii dahabshiil hormuud iyo Premier Bank iyo bangiyo kale oo aad u fara badan ee runtii waxa waa halka ka ganacsada in waxa waa laftirkooda waxa waa ma taqaana siyaasadoodii iyo policy-gii ay ku shaqeyn jireen wax laga bedeli doono in ay noqoto in waxa waa transparent wax la yiraahdo ee dawladda federaalka iyo bangiga dhexe ee runtii soo maraan hawl kasta iyo bangi kasta waxa ay runtii waxa waa u gudbinayaan dhanka iyo Somaliland lacagaha faraha badan ka imaan jiray ama Imaaraadka ama dawladda kale ama nooc doonana aan war loo hin oo bangiyada ugu soo dhici jiray in waxa waa runtii la xanibay marka howlo aad u fara badan ayaa istaagi doona iyo dhaqankii iyo qaabkii lagu la dhaqmi jiray Somaliland maamulka la magac baxay waxa soo socda cunaqabateyn aad u ballaaran oo runtii waxa waa dhanka maamulka ah ragga maamulka runtii waxa ku dhici doona cunaqabateyn aad u ballaaran wararka aanu helino in waxa waa dawlamadyadii laga xanibi doono waxa waa 20 iyo dhowr qof oo hadda waxa waa liiskoodii loo gudbiyay caalamka jaamacadaha carabta ay ugu horeeyaan in aysan waxa waa dawlamaad xataa diyaarad dul maraysa dalalka dadka magacyada liiska wata inaysan dul mari karin runtii waxa waa dawlamadyadii waxa waa ku socday jaamacadaha carabta oo dhan ama dawlado badan oo islaam ah in aysan hawada aysan dul mari karin diyaarad sida Cabdiraxmaan Cirro ka soo qabo hadduu aaday inuu Finland aado halka uu marayo waa Ethiopia haddii aysan toos diyaaradda aysan ahayn ma mari karo dal Albeed Imaaraadka iban xataa uma duuli karo oo diyaarad hadda haba yaraatay u ogolaanaysa oo single entry ayaa hirgalay waa inuu Muqdisho soo maro marka Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ku qasbanaanayaa inuu waxa waa Muqdisho yimaado diyaaradda Hargeysa ka soo qaadayso waa inay Muqdisho timaada kadib ay Imaaraadka sii aadaa ama inuu waxa waa Ethiopia markaas uu ka sii baxaa marka dhankii hawada Soomaaliya firigeed waa ay xirantay marka waxyaabahaas oo dhan baa soo socda kaligiisna ma hadda waa guurtida inta ugu badan oo Soomaaligaal oo kamid yahay ana aadan ay kamid tahay marwada dad badan baa xanibaad oo runtii wax waa dawlamadeeda la saaray oo dalal Carbeed liiskooda ay soo saareen ilaa 20 dawladood in aysan waxa waa hawadooda aysan isticmaali karin diyaarad sida dadka magacyada nooca leh marka waxa how long ay sii shaqeyn kartaa waa maamulka hadii dhaqaalaha lagu curiyaamiyay oo dagaalday waa dawladda mar hadii ay niman Israa'iil dalka keenay niman Ethiopiana dalkii u jaraayay oo runtii waxa waa heshiis qaldan 20 sano iyo waxa waa dekad iyo bad Soomaaliyeed kula galay marka how long ayay socon kartaa waa marka in maamulkooda uu sii jiro marka tan waxay u muuqataa maamulkii la magac baxay Somaliland ama gooni-goosadka ee 30 sano soo shaqeynayay in ay ku burburayso gacanta Cabdiraxmaan Cirro uu noqon doona maamulkii ugu dambeeyay ee ka shaqeeya maamulka waqooyi galbeed ama waxa waa maamulka la magac baxay Somaliland